qudus maxaa kala socotaa sooyaalkeeda intii islaamku uu jiray. weligeedba qudus magaalo barakaysan oo diimeed ayay ahayd. diimihii yahuudda iyo masiixiyadda meel dheer bay kaga taalay tan iyo markii la aasaasay. ambiyada reer banu israa'iil oo dhan waa magaalo ay soo mareen waxyi badan, kutubo samaawi ahna lagu soo dejiyey. waa magaalo habeenkii nabi maxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee markii la dhiilminayo uu kula kulmay ambiyo fara badan kuna dushiya sida siirada ku cad. balse qurmadayda waxay ku socotaa oo keliya sooyaalka magaalada oo kooban dhimashadii nabi maxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee kadib 637 cumar bin khadaab khaliifkii labaad ee islaamka ayaa qabsaday markii ugu horeysay abid ee soo gasho gacanta muslimiinta. waa 6 sano ka bacdi dhimashada nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam waxay muslimiintu ku qabsadeen magaalada barakaysan ee qudus. dowladii basaatiini loo yaqiinay embaduradii Roomaanka ahayd, berigii xorta ahaydna loo yaqiinay Istanbulta maanta. waxa xusid mudan inay masiixiyiintii yuhuuddu ku noolaa magaalada iyo goobahoodii cibaadada ay lahaayeen uu badbaadiyey sayidna cumar bin khadaab. madaxdii muslimka ay magaalada loo dhiiban oo ku amray inay dadkaas iyo goobahoodii cibaadada ay nabadgeliyaan. dhaqankaas oo soo tixnaa 1300 oo sano in ka badan, waxayna gacanta muslimiinta ku jirtay magaalada qudus ilaa 1999 oo markaa ay masiixiyiintu ka soo duuleen Yurub ay dib u qabsadeen magaalada. waxayna haysteen ilaa 1187 markaas Saalixudiin al-Ayyubi oo dib u qabsaday. dhacday muslimiinta iyo masiixiyiintu wada yaqaanaan oo caan baxday ayay noqotay. kadib khilaaf soo kala dhaxgala ilmihii Saalixudiin iyo guud ahaan daciifnimo ku timid muslimiinta ayay mar kale ku dhacday in gacanta masiixiyiinta taariikhdu markay ahayd 1229. laakiin waqti dheer kuma aysan soo jirin gacantooda oo dib ayaa loo xureeyay qudus markay taariikhdu ahayd 1244. waxaana xureeyay Najmudiin al-Ayyubi oo isla qoyska Saalixudiin al-Ayyubi ka tirsanaa. isku dayo fara badan oo loo yaqiinay duulaankii masiixiyiinta Crusader. dagaalkaas oo socday in ka badan 2 qarni, balse way suurtoobi weeday inay magaaladaasi qabsadaan. horaantii qarnigii tagay dowladii Cusmaaniyiinta oo geeska sii dhiganaysa ayaa gumeystihii Ingiriiska ka qabsaday Qudus iyo Falastiin oo dhan. waxaana duulaankaas garwadeen ka ahaa General Eilen Bay oo marka ay qabsadeen Cusmaaniyiinta ka markuu ahaa 1917. joornaalkii soo baxay ee London ee daawacday ayaa lagu qoray Britain oo Qudus soo badbaadisay in ka badan 673 sano. waxayna ku tusinaysaa ahmiyadii uu lahaayay halganka ee Yahuud iyo Masiixiyiinta ay u soo galeen magaalada Qudus. Ingiriiska markuu dhulka reer Falastiin Yahuudda ku wareejiyay 1948 kuma uusan darin dhammaan magaalada Qudus oo qaybo kamid ah ayuu Carabta gaar ahaaneed boqortooyada Urdun u dhiibay. dagaalkii Carabta Israa'iil oo dhacay 1967 ay Yahuuddu qabsadeen magaalada oo dhan. waa dagaalka Carabeed guud ahaan markay reer Falastiin ee loo yaqiinay Ibtidaal-D waxay ahayd markii ugu horeysay Yahuuddu qabsadaan Nabi Ciise calayhi salaam kadib. balse intii islaamku ka tilinayay magaalada Qudus oo dhan, Yahuuddu waxay la noolaayeen muslimiinta. markastay masiixiyiintu qabsadaan sida muslimka loo laayo baa loo leyn jiray. wixii ka haraana meesha muslimku ku cararayay ku carari jireen kula noolaan jireen amni iyo barwaaqo. abaal nin gal waa la arkay, balse nin gude salama arag. waa mahmaa Soomaaliyeed isku soo duubo magaaladan barakaysan weligeed duco qanuud iyo inkaar midna laguma xureynin. xinjir baa loo daadin jiray, dhiig baa u qulquli jiray, nafaf badan baa loo goyn jiray si ay xur u noqoto. balse anagu haddii aan nahay Soomaali waxaan duco ahayn uma awoodna reer Falastiin, waayo anagaaba tayna dhulka ka qaadi lahayd. wadaan reerkeedii gabay reer kalaama kala kaalsho. qormadan waxa qalinka u qaatay Ustaad Axmed Shariif. anigoo Maxamuud Sheekh Cumarana ayaan idiin soo jeedinayay. reer Falastiin uma baahna hanjabaad warbaahinta loo mariyo Israa'iil ee waxay u baahan yihiin garab cad iyo wiilal dhiig iyo xinjir ku xureeya mar kale Qudusta barakaysan.